aad ugu faraxsanahay waftigan ballaaran ee nooga yimid Maraykanka waxay ka socdaan sanadka Maraykanka ayaa soo dirsado ay wakiil uga yihiin dhowr iyo 10 wadan oo kuwaynu jaarka nahayna ay ku jiraan oo Afrika ayay soo mareen waxay doonayaan xaalka Soomaaliland siduu yahay inay ogaadaan abaaruhu say yihiin doorashooyinka halkaynu ka taaganahay halkaynu marayno waxyaabahaas oo kale briefing baan ka wada siinay waxaan u malaynayaa wixii ay u baahnaayeen waanu u sheegnay waxyaabaha ay xiiseynayaan waxa weeyaan doorashooyinka ayaa ka mid ah iyo abaaraha iyo nabadgelyada kolkaa way ku qanceen sababaha aynu dib ugu dhignay doorashooyinka inay abaaraha yihiin way ku qanceen waxaanu sheegnay kala budgetkeenu inuu ku baxo xagga nabadgelyada sababta awgeedna inayna jirin maaragtay argagixisay wadankeena inayna jirin maaragtay burcadbadeedna jirin oo xoolaheena aynu ku bixino xaggaas wasaaradda arrimaha dibadda ay ka bilaabeen waa albaabka dalka laga soo galo waxaa ku xigay qorshaynta caafimaadka deegaanka galabta qaar kale la kulmayaan waxbarashada marka deegaanka aad iyo aad waqti badan la qaateen waxa la martiqaad civil society galabtay arkayaan marka wadanka indhayn iyo wuxuu yahay wadankan Soomaaliland la sheega kale la arka waa intaas inta inuu ku yaarnay